maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc muhiim ah oo qof walba taabanaya waxyaabaha ay sameeyaan dadka maskax ahaan qaangaarka ah si aanay u lumin waqtigooda. mowduucaas ayaan maanta faaqidi doonaa. waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto. waqtigu waa hantida ugu qaalisan ee nolosha qof kastana wuxuu leeyahay maalmo tiro kooban ah, laakiin sida uu waqtigiisa u isticmaalo qofku ayaa go'aamisa halka uu nolosha ka gaari doono. dadka maskaxdoodu qaangaarka tahay si sahla ah uma ogola in waqtigooda ay ku lumiyaan wax aan faa'iido lahayn. marka hore bal aan isweydiino, maxaa loola jeedaa waqti lumin? waqti lumintu waa marka aad maalintaada ku bixiso wax aan horumar kuu keenayn adduun iyo aakhiro labadaba, wax aan noloshaada bedelaynin, sidoo kalena maskaxdaada aan kobcinaynin. waqti lumin taas ayaa la yiraahdaa. marka qodobka ugu horeeya oo ay sameeyaan dadka maskaxdoodu qaangaarka tahay waa inay yeeshaan qorshe maalinle ah. habeen kasta waxa ay seexdaan iyagoo og waxa ay qaban doonaan maalinta berita ah. macnaha qorshe ayaa u degsan. haddaad aragto qof subaxii kasoo kacay isagoo aan ogeyn waxa uu beri qaban doono, qofkaasi ha ka sugin. maskaxdiisu qaangaar ma aha. marka waxaa u degsan qorshe beri 1 iyo 2 iyo 3 ayaan beri qabanayaa. way u caddahay waxa ay beri qaban doonaan. tusaale ahaan, marka qofka maskaxdiisu qaangaartay ma tooso subaxdii isagoo aan garanayn waxa uu qaban doono beri. waa qodobka ugu muhiimsan ee dadka maskaxdoodu qaangaarka tahay lagu yaqaano. marka haddaa u fiirsato soomaalideenna, waliba dadkeenna haddaa u fiirsato, inta badan maba jirtaba. qofka subaxii waa soo kacaa, habeenkii wuu seexdaa, wax qorshe ah ma jiro. meeshii la rabaa loo wataa, sidii la rabaa loo soo wacdaa. waa adiga qorshe ma jiro. marka la helo marka nidaam sidan oo kale ah oo beri waxa aad qaban doonto 1 iyo 2 iyo 3 ay kuu qoran tahay, maskaxdu ma wareerayso, waqtigu kaama lumaayo. sababtoo ah qofka si buuxda ayuu ogyahay meesha uu waqtigiisa iyo enerjigiisa ku bixi doono. meesha waqtigaaga iyo enerjigaaga aad ku bixin doonto, haddii aad ogtahay waxa aad beri qaban doonto, waad ogtahay. sidoo kale dadka maskax ahaan qaangaarka ah ma raacaan dareenka oo keliya ee waxay raacaan qorshaha iyo natiijada. macnaha qorshahooda ay raacaan ee dareen wax kuma saleeyaan. marka qofku uu leeyahay marka waqti xadidan, waxaa muhiim ah in dadka waqtiga kaa luminayo aad dhahdo maya. tusaale, qof aad iska kaasoo wacdo wuxuu ku yiri waxaan aadaynaa xeebta inaan u baahannahay. xeebta ayaan rabaa inaan aadno makeen waa raacday. macnaha raacitaankaas waxaa lagu leeyahay oraha dhaysaa jirta, haddii aadan qorshe lahayn adiga waxaad ka mid noqonaysaa qof kale qorshihiisa ayaad ka mid noqonaysaa. marka maya inaad dhahdo qofkaas, sababtoo ah jadwalkaagii maanta qofkan kuma jirin. marka dadka waqtiga kaa luminayo inaad dhahdo maya waxay ka qayb tahay ilaalinta waqtigaaga iyo qorshahaaga maalinla ah. intaas bisaad u baahan tahay inaad fahamto. waa qodobka labaad ee muhiimka ah. dadka maskaxdoodu qaangaarka tahay ma ogola in la geliyo howl aan faa'iido iyo macno badan u lahayn. haddii aad aragto qof howl aan faa'iido ama macno u lahayn ku dhex jira, qofkaas maskax ahaan qaangaar ma aha. qof qaangaaray ma aha. haddii aad rabto marka inaad ka mid noqoto dadka waqtiga qiimeeya, maanta bilow marka lagu dhaho marka 3 shay laga rabaa adiga. 1, qor waxa aad rabto inaad qabato beri waxaan rabaa inaan 1 iyo 2 iyo 3 intaas qabto. 2, dheh maya qof kasta oo raba inuu qorshahaaga iyo jadwalkaaga ku ciyaaro. qorshaha kuu degsanaa 1 2 3 4 5 6 baa soo kororto sooma, maya ayaa leedahay. marka maya kaliya kuma ekaanaysidee, qodobkan 3 ayaad ku xalinaysaa. haddii qofku yahay qof aad muhiim kuuga ah, qorshaha beri ku dar si qorshaha maanta uusan kaaga carqaladayn. manaha qof aad muhiim kuuga ah waaye oo aad ilaalinayso qalbigiisa. marka qofkaas waxaa leedahay niyow beri aan ka dhigano. qorshaha beriyaa marka 1 ka bilaabanaya. qorshahaas 6 ee kugu soo kordhay, qorshaha beriyaad 1 leedahay. marka isagaa ka bilaabanaya. aad baad umahadsantihiin. soo dhawaada mar kale.